waxaan ahay Maxamed Cali Warsame waxaan ahay Saada Cali Warsame oo lagu dilay Muqdisho 2014 walaalkeed waxaan ognahay ilaacadu dadka ay sheegtay ee labada ah inay kamid ahaayeen dilkii ay la socdeen raggii dilay afar bay ahaayeen Saado afartii nin labadii nin ee gacanta sida tooska u lahaa ninkii beekaamka sitay iyo nin kale waxaan ognahay in jeelka laga sii daayay oo ay nool yihiin ayna soo aadeen waqooyiga Soomaaliya waanu ognahay cidii ka dambeysay iyo cidii heshiiskaas la gashay cid kasta oo ay yihiin waanu la soconnaa iyo meel kasta ay joogan waanu ognahay haddaanu nahay qoyska Saada Cali ay ka dhimatay waanu soo taagi doonaa sharciga diinta islaamka ama maxkamadaha adduunka ha ahaato waqtiyada kamida waxaanu cadeenanaa ilaacadaas waxa laga sheegay inaysan ahayn raggii sida tooska u dilay Saado iyo raggii ka dambeeyayba waanu ognahay waanu haynaa cadeynteeda iyo baaritaankeedaba haddaanu nahay qoyskii ay ka dhimatay Saada Cali Warsame waxay aadeen waqooyiga Soomaaliya waxaana lagu sii daayay lacag baa lagu sii daayay cidii ka dambeysay ee lacagta markii hore ku bixisay baana ku sii deysay waanu ognahay cidii ka dambeysay iyo cidii sii deysay waxaanu annaga noo qorsheysan in sharciga diin horta dilku ma qarsoomo waxaan waa dhiig qof wax qarsoomayna maaha qoftaas gabadhaasina walaashayna gabadh aad u caan bay ahayd waxaan u sheegayaa adduunka inaysan waxba ka jirin nimankii gacanta tooska lahaa aysan ahayn maanta BBC ama ilaacadaha laga sii daayay VOAda ay laakiin lagu sii daayay lacag oo ay nool yihiin cidii ka dambeysay iyo cidii gacanta tooska lahaydba waanuna soo bandhigi doonaa wayna noo cadahay waana haynaa cadeynteedii haddii Ilaahay ka dhigo waqtiyada soo socda ayaanu soo bandhigi doonaa sharcigana la soo hortaagi doonaa cidii ka dambeysay iyo cidii gacanta lama lahaydna waanu ku daba jirnaa waana la keenaya